kooxaha arxanlaawayaasha oo maleeshiyaadka oo aan damqashada lahayn oo maanta baaba'shay dilaya birmageedo 90 jir iyo maamo iyo hooyo caruur yaryar kuwaas wax faa'iido oo laga sugayo ma jirto waxaan leenahay gudoomiyeen waa naag fadhiya maamulka Hirshabeelle waa jooga arrintaas waxay u baahan tahay in tallaabo degdeg laga qaado dadkaas horta tallaabo degdeg oo sharciga waafaqsan in laga qaado waxaan ku boorinayaa dadka dhibaatadaas soo gaartay oo annaga aan ka midnahay aan eheladoodii wada nahay inaysan arrintaas caadifad kale aysan ka dhicin aysan sababin fidno kale hor leh aan la xalli karin arrintaas dhibaatada ka taaganne aan annaga dhan hal meel ugu soo wada jeesan doono si xal rasmi ah oo waara looga gaaro waxaa leeyahay dadkan maleeshiyaadka ama dadkan qabaa'ilka xoogga leh oo qoryaha haysto birmageedada dilaayo wareedhow dad ka mudanaa jiro in la dilo amba aad la diriirtaan oo gumeysi idinku hayo oo idin baaba'shay oo meel walba idinku haysto oo 12 sano iyo ka badan idin dul saara uma baahnidin maanta inaad isku dishaan qabiil uma baahnidin inaad gabdhaha yaryarka iyo hooyooyinka iyo carruurta aalaysaan dadka idin gumeysto maskaxda idinka haysta u baahan inaad mataqaanaa aad meel u soo wada jeesataan waxaan leenahay arrintaasi duubabka ayaa nagu horkici doono annagana siyaasiyiinteena heer federaal iyo heer maamul goboleed xilli doorasho lagu jiro waxaa waaye arrintaasi si degdega oo aan loo kala harin haddee tahay xal iyo haddee tahay gacan bira in lagu qabto maleeshiyaadkaas oo hadda uu sheegay gudoomiyaha oo la yaqaan inaan ka wada shaqeyno wax alle iyo wixii ku baxayna aan u wada istaagnaan diyaar u nahay wuxuu sheekadu ma aha keliya in qabiil iyo maaragtay ma taagna maanta waxay taagan tahay ficil waxaan ku baaqaynaa dowladda oo Hirshabeelle ayadoo kaashanaysa dowladda federaalka maxaa yeelay dowladda federaalka mas'uuliyad ayaa ka saaran qarankay u dhaaratay ayay ka mid tahay waxaan u soo jeedinaynaa in loo istaago sidii arrintaas ay ku dhammaan lahayd nin alla ninkii dhibaatadaas geystana ayan ahayn hal xiro waxa sharciga islaamka iyo sharciga kalaba uu ka qabo in la marsiiyo waa kii 90 jir dilay kii dilay ilmahaasay tisada naxariis darrada u dilay war ilaahay ha laga cabsado oo rasuulkiisa maaragtay aamina saqiirada iyo maamooyinka yaa la dhamaynin aday hadday ku dhalin walaalka ayay dhashay war naxariista xaggee idinka aada dadka deegaankaas joogo naxariista xaggee idinka aada waxaan rabaa inaan ugu baaqo maxkamadda ciidamada qalabka sido meelaha kaleentood badwaad aadiine fadlan waxaan idinka codsanaynaa idinkoo guuraaya imaada deegaanka dega nin alla ninka dhibaatada geystana deegaanka dhexdiisa ficilka uu mudan yahay iyo ciqaabta uu mudan yahay ha lagu marsiiyo waxa ka dhacay deegaanka xanuuna ee hoostaga degmada Warsheeg waxa ay yahay wax musiibo ah wax mucjiso ah wax aan la arag lana maqal loona dul qaadan karin waxa ay ahayd musiibo midda ugu xun ee ka dhacday deegaankaas waxa deegaankaas musiibadaas mid lamid ah ka horeysay oo ahayday wadaado culimo ah oo quraan akhriyay lagu dilay iyagoon cidna markaas ku ahayn takana ku ahayn waxa ka soo horeeyay wadaad duqa oo waayeel ah oo cad ah oo sariir saaran oo aan maaragtay dhaqdhaqaaq iyo ma lahayn in lagu gala guriga lagu dilay waxa kale oo ka soo horeysay dhaqaatiir ku dhawaad gaaraya 10 in lagu dilay iyada qayb ka mid ah degmada Balcad dhammaantoodna ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe qaasatan ugu badan hadda degmooyinka Warsheed iyo Cadale oo ahayday halkii lagu wada xasuusto inay yihiin labadaas degmo Cadale iyo Warsheed weliba Warsheed magaca sida aad ka garan karto guri diimeed ahay lana rabo in lagu suurad xumeeyo magacaas guriga diinta ah iyadoo aan wada ognahay diinta faafinteeda in ay ka ahayday labada degmo oo ay aad ugu maaragtay badneeday oo ay ka soo gaartay koonfurta waayahay dhacdooyinkaas oo dhan maxaa sabab u noqon kara marka laga soo tago inay salka ku hayaan aano qabaa'il ama dagaal qabiileed maxaa kale oo sababi kara in gobolka ama deegaanada hadda aad sheegtay ay dhacdooyinkan
yihiin kuwa ku batay cabdiqani waxaa sababi karaa dadka deegaankaas degan oo aan wacyigashanayn waxaa sababi kara deegaankaas oo aan xoogaay inta badan ayna ka howlgelin maxkamadaha ku shaqada leh arrimahaas inta badan deegaanadaasu dadka degan waa hermiyiguna waxay u baahan yihiin nidaamka dawladnimada in loo daadajiyo la geeyo waxaa jirta xoogaay wax magarato in la kala celsho ay maaragtay u baahan yihiin dadka waxyaabahaas waxyaaba aada u soo naqnaqda waaye waxyaabo musiibooyin oo mucjisooyin ah oo kuwii uga xumaay ah waaye waxyaabaha sababi kara wacyigelin la-aan meesha ka jirta dadkii deegaankaas u dhashay ee deegaankaas matalayay ee deegaankaas ku aftirsahayay ee maaragtay u ahay wax walba ku ahay koonfurta iyo magaalada muqdisho ay wada joogaan xoogaay gaadis xaggooda ah ayaa sababaya waxaan aaminsanahay ganacsatada siyaasiyiinta dhaqanka hal maalin hadday u kacaan mas-uuliyooyinka dhulkaas ka dhacay oo dhan inay soo afjari karaan laakiin weli waxaa jirta isku hallayn iyo isku tuurtuur iyo dad isku tuurtuuraya arrimihii oo xun haddii wax laga qabanahay kuwii horoo dhacay waxaan hadda yimiday ma imaalahayn waayahay kuwii hore dhacay waxba aan laga qaban hadda adigoo aad sheegayso haddii wax laga qaban lahaa kuwa hadda dhacaya aysan imaan lahayn inta aad adigoo ogaalka gacmaad ka og tahay yaa loo baahnaa inay u istaagaan oo ay ka dheedhiyaan ama wax ka qabtaan oo ka gaabiyey waa mahadsantaha wax walba waxaa dhaqa horta dhaqankaa dhaqa waxaa loo baahan dhaqanka horeyay u galeen arrimihii horey markay u galeen waxyaaba lagu heshiiyaa jira waxyaabaha lagu heshiiyey dhaqanku haddii wax lagu heshiiye waxay u baahan yihiin gacanti fuli laheeday ee ah awooddana waxaa looga baahan yahay dawladdana waxaa uga wakiila maxkamadaha ciidamada qalabkiisa uga wakiila waxaa la rabay deegaankaas in maaragtay awooddaas dawladnimo la gaarsiiyo gacandirana lagu qabto waxaana dhaqan kara saan aaminsanahay oo arrintaasi soo afjari kara dhaqanka iyo siyaasiyiinta ku matala dawladda iyo kuwii hore iyo kuwa hadda joogee mansabka haya iyo odayaasheeda dhaqanka haddii isku duubmaan arrintaasi waxaan aaminsanahay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh ay soo afjari karaan xoogaay gaadis xaggooda ahaa jira waxaan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo dadka ay ku aftirsadaan dadkaas deegaanka ah in arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badanla loo galo laga aamusi ma karo wax loo dul qaadan kara maaha arrimo wax ka daran hadda soo socda u malay maayo wixii xala dhacay oo ahay hooyo umul ah ee 40 habeen dhalan iyo cunugeedii ay dhashay in laisku kor dilo wax ka xun oo dhici lahay inay jiraan ma aaminsan waayahay si marka hadda loo soo afjaro muxuu yahay xalka ugu dhow dhammaan deegaanadaas colaada ka taagan xal loogu raadin karo xalka ugu dhow la raadin karo waxay tahay in dhaqankii annagoo dhalinyaro ah ayaan is abaabulnay qorshaynu wuxuu yahay inaan deegaanka tagno inaan horta soo ogaano waxa laysku haysto in laysku dilaayo horta ma dhulaa ma ceelaa ma guryaa ma dadaa waxa laysku haysto horta inaan ogaano haddaan ogaano cid og ilaa hadda ma jirta miya wax laysku hayo waxa laysku hayo cid og ma jirto dadka qaarna waa og yihiin dadka qaarna ma oga laakiin wixii laysku hayo in la soo ogaado laga daba tago waxa laysku hayo hadday dhul yihiinna la kala bixiyo haddii xoolo la kala haysta yihiinna la bixiyo intaasoo shaqaana waxaa qaban kara dhaqankayna hadduu si daacada u istaago iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada kasoo jeeda deegaankaas dad badan waxay isweydiinayaan haddii sida hadda la tuhmayo ama inta ugu badan wararku sheegayaan dhacdadii xalay iyo kuwa kale lamidka ah ay salka ku hayaan aanooyinka qabiil waxay isweydiinayaan fikirka ku saabsan in aana qabiil awgeed dadkan birmageydada ah ee xalay ay ugu dambeysay hooyo umul ah cunugii ay umasha kula jirta iyo caruur kale oo yaryar in la dilo siduu ku imaan karaa wuxuu ku imaan karaa adna daro
iyo arxallahu aan diin iyo iimaan toona lahayn ilaahayna aan aqaanin kana fikiraynin dadkaas uu dilaayo waxa ay yihiin iyo waxa uu ku kasba karo waana alla ka fogaasho waxaa keeni karaan islahay cawaannimo ku jirtaa keeni karta waayahay adiga dhalinyaradaad ka mid tahay si guud shacabka deegaanadaas soo uma muuqato inay eedda wax ka leeyihiin oo aysan jirin ilaa hadda tilaabo ay qaadeen marka maamul laga soo tago marka laga soo tago maxkamado dadka deegaanka ama dadka deegaanada si guudba ilaa hadda lama hayo dad is abaabulay oo shacabkii ah oo soo qabtay koox kamid ah kooxihii dhibaatooyinka geysanayay ma jiraan qaarkood haday jiraanna waxa waaye waa wax yaro kooban laakiin arrintaas hadda ma jirto mana u dhicin dhaqaatiiraa la dilay ilaa ay hadda meelay ku dambeeyaan lama helo culumaa la dilay ilaa ay hadda meelay ku dambeeyaan lama helo hadday taagan tahay arrintan dadka arrintan geysta lama hayo insha allahu tacaala waxaan hormuud u noqon doonaa annagoo dhalinyaro ah inaan is abaabulno haddana abaabulkii waa bilownay deegaankii aan ku baxno arrintaana insha allahu tacaala inay noqoto arrinta ugu dambaysay ee ka dhacda deegaankaas ee ah gurigii diinta ee aan ku soo barbarnay waalidiintayna iyo culumadii diinta la soo bartay ay ka soo jeedaan in la suurad xumeeyo ee magaca laga dilo deegaanadaasi diinta caanka ku aheeday waxaan ka dhiidhina waaye haddana waa ka dhiidhahaynaa abaabulkeeduna waa bilownay dadkana waa tegaynaa deegaankana waa tegaynaa wacyigelinna waa bilaabaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan soo afjar